umahadnaq ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu simay maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bisha tobnaad inaynu ka soo qayb galno amba aan goobjoog u ahaano xafladan xil wareejinta ee agaasimihii hore komishanka maamulnaaga Master Deeq iyo agaasimaha cusub runtii gudoomiye ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo shaqaalaha xafiiska ayaa runtii warbixin kooban ka bixiyay oo koobsanaysa deeq wuxuu ahaa intuu xafiiska joogay waxba ku dheeraan maayo oo runtii deeq waxaan filayaa isagoo ah agaasimaha duulista iyo madarada ayuu halkan isbedel ka dhacay gudoomiyahan runtii loo doortay aniga markaa runtii maxamed libaax aniga iyo liibaan oo dhalinyaro runtii daahaan isku dhow ayaa madaxweynuhu agaasimo cusub noo soo magacaabay deeq markaa waxa loo xulay inuu noqdo qofka odayga u ah ee komishanka maamulnaaga runtii shaqada u qabanaya ee odaytinimada ka shaqeynaya waxaan filayaa shaqada loo soo xil saaray iyo shaqo ka dheeraada intaba runtii uu qabtay taa waxaa ka marqaati kacaysa shaqada shaqaalaha isla wada shaqeynayay iyo komishanka iyo xubnaha komishanka oo aan filayo weli iyagoo cid cabasho ka timi amba shaqaalaha ha noqoto amba gudida ha noqoto deeq dhex martay runtii aanay jirin waxaan runtii iyana aada iyo aada u soo dhaweynaya agaasimaha cusub Mrs. Ifraax Farxiya waxaan runtii de ka marqaati kacaysa sida uu soo raacay dhammaan shaqaalihii kala duwanaa ee wasaaradda maalgashiga oo halkan jooga ilaa wasiirka runtii soo sabuutiyay sida ay ka hadleen mas'uuliyiinta ka horeysay xilka xafiisyada dawladda loo qabanayo waa xafiis waa public waa wax dadku wada leeyihiin marka runtii halku dhiga ah inuu xafiis dadku wada leeyihiin la helo waa halkay ka bilaabantay maamulnaanku waxaan runtii khubadda jeesay agaasimo guud ka muuqatay inay faham ka haysato dawladnimada waayo halkan waa halka dadka lagu xisaabtamo waa halka dadka banyaalnimada ka shaqeysa hay'adaha dawladda waa halka sharciga lagu ilaaliyo marka runtii qofka xafiis ka yimaada ka shaqeeya amba agaasimaha ka noqdo waaxid amba shaqaalaha ka noqdo ama maamulka ka noqdo waxaan filayaa wax uga dhimay dawladnimada inuu wax ka bartaa inuu madaxweyne noqdo qofkaas wax uga dheer ma jirto waayo waa halkii hay'adaha laga saxayay dawladda halka qiimeynta lagu sameeyo halka kormeerada lagu sameeyo halka wax lagu baaro waa halka warbixinaha qofka halkan xafiiskan qofka jooga mas'uulka ah shaqaale wax qofka jooga waxa xafiis umuliso kale umulisooyinku waxay hayeen warar badan oo aan dadka lahayn baahaya waayo dadka mas'uuliyiinta ah ee jooga hay'adaha dawladda oo marka meelaha maraysan laga yaabo idinku wax ka aaminsan tihiin xafiiskan dadka jooga kale ka aaminsan waayo si guud iyo si gaar ah runtii wada shaqeeyaan xafiiskan wuxuu ka shaqeeyaa dhammaan gobolada dalka oo dhan deeq wuxuu runtii wax sheegay ma laakiin waxaan filayaa xafiiska marka laga budgetka yaali iyo shaqada la qabtay muddada sanadii 9 bilooda dhulku marka halkan yaala agaasimaha guud wuxuu dadkii qaybta ugu badan ka qaatay hadalkan waxa yaala xeerarkii waxa yaala hagay baadhistii qiimeynta waxa yaala xil wareejinii waxa la hagay muxuu ahaayay waxa la yiraahdo kormeerkii qiimeynta waxa yaala cilmi baadhisii halka waxa yaala intaas oo dhulku yaala waxaan filayaa agaasimaha guud maadaama operation yahay marka guddiga isu timaadee la ansixiyo qarshaha sanadka oo istiraatiiji balaanku markii koobaad xafiiska kii labaad laga sameeyay hakii intuu joogida annual work balaankii ka dhashay sanadka ahaa shaqadii la isla qaato agaasimuhu daba geliyo shaqadiisa ahayd waxaan filayaa 6 bilood ugu horeeyay rabad ka soo baxay waa ka yaalo waa calaamad sheegaysa maamulnaaga shaqadii la qabanayay agaasimuhu sidoo maamulay marka agaasime waa wax runtii ilaahay loogu farxo inaad shaqadii la soo waday imanka waxa diyaar ah labadii shaqooyin kale oo cilmi baarista daba soo bandhigayo waxa ka diyaar ahayd muxuu ahaay tababarada shaqaalaha oo iyagu taagnaa waxaas oo dhan runtii agaasimaha guud cusub la wareegi doona agaasimaha guud waxa leeyahay ilaahay miisaanka xasan ugu dar wixii qabatay codkaagana si fiican baa loo maqliyay mara berigii hore intan dambe codka ku soo furmaan fadhiya intii runtii muxuu ahaay gudoomiye ku-xigeenka ka hadlay agaasimaha guud wuxuu lahaa ka komishanka ku dhigo kulli runtii waxaan filayaa madaxweynuhu meel buu ku dhigay komishanka maamulnaaguna waxa qayb kamida qaybaha madaxweynaha meesha ku dhigay ka mid noqonayaan komishan ahaan maadaama qof experience khibrad badan oo xafiiska in ka shaqeeyay waxaan jecelahay xafiiska la joogto waxaan jecelahay runtii inaad xafiiska la shaqeyso way jiraan walow aan jirin oo inuu jirin lacag la taliyaal oo xafiisku leeyahay haddana waxaan rajaynaynaa gudoomiyaha komishan agaasimaha hore komishanka si ay wax u dhacaanba in xafiiska la shaqeeyo xafiiska lagu soo faa'iideysto xafiiska wuxuu awoobuha
waxaan oran jiray awooba la oran jiray ima kale ayeeyaa timi oo yaro xaarintii xafiiskii kusoo beertay waxaa filay markaa waxaa sheegaysaa maadaamay xafiiska awooyaashii ay isu bedelayaan waxa calaamad sheegaysa lafteedu qaybta maamulka oo runtii sheegaysa xafiiska sidoo shaqeeyo iyo in laga rabo in xafiiska laga rabo in runtii wax badan qabto sida agaasimu ku hadlay saddex waaxood oo kamid ah dumar marka hadal ugu daran waxa noqonaysaa afar dadku noqonaysa marka waxa dhacay waxa ya marka gender kuweysa ka sheegay waxa jira waxa yiraahdo marka hore gender balance ka leegi jiray imika laakiin mala gender bias baa dhacay waxa weeyaan dhinaca ka radaan baash marka runtii waxaan jecelay in agaasimo waaxyada halkan jooga agaasimo ka waranay waa si barad doonto gudoomiye ku xun ka hadlay agaasimo waaxyada iyo anagu isma soo gaadhno waxaan filayaa muddadii aniga gudoomiye ku xigeen qarnimo doortay halkan joogno gudoomiye ku xigeenka aniga ugu horreeyay gudoomiye ku xigeen buha laakiin marba wada doonaan ugu dar agaasimo waaxyada intaan la shirnay runtii way koobantay sababta wax kala maaha maadaama agaasimaha guud operationka hayo waxaan anagu shaqada agaasimaha guud ee la sameeyay walba planke qorshaha sanadka agaasimaha guud ba ka wada shaqeeyo isma aragno xafiiskan haddii qof ka cabanayo qof kale agaasimo waaxyada ka cabanayo procedure-ka caadiga cabashooyinku ma soo maraa qofka shaqaalay warqad buu qoraa agaasimo waxiisu ogsiiyaa agaasimo soo dira gudida eegta halkaas laga anshax maray qofki isma aragno waxa laga yaabaa waxa say noqoto waa agaasimo guudna u joogay waa rad barad doontaa sidaasan ku wada shaqo doona haddii la yiraahdo muxuu ahay qalbi furan iyo muxuu ahay maskax cusub oo active ilaahay waxaan kaaga barayaa in dumarkuna xafiiska berigii ugu horreysay buu maxamed ka hadleen xafiiska la wareegno uu yidhi bal hablaha la soo dhaweeyo marka waxaan filayaa ducadii loo aqbalo adiga la yimi waxaan rajeynayaa agaasimo guud inaanu si fiican uga shaqeyno ilaahay waxaan kaaga barayaa anigu mar labaad iyo mar saddexaad agaasimaha guud wuxuu ka qayb galay intaasoo xafladood xilli lagu kala wareejinayo oo laga yaabo marka la agaasi waxa soo socday qoladii maamulka kala wareejinaysa in ka wareejinaa naxdin ka qaadi jiray meesha laakiin maanta in marka isaga laga wareejiyo waxa la yidhi malagan nafta qaada marka nafta keen markaas bay ugu daran anaguna kole haddii ilaahay yidhaahdo dee halkan xafiiska maamulka gol shaqaalaha suma laga tegayaa laakiin dadkan mas-uuliyiinta ka wada tegayaan waxaan rajeynayaa naxdinta in kooran martin aad hadhow anaga noo sheegto waxoogaa annaguna aanu haddii ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid ah habraacyadii komishanku sameeyey ay ka mid ahayd in xafiisyada dowladda lagu qabto oo lagu kala wareejiyo xafiisyada dowladda oo aan lacag ku bixin labadiina waxay rajeynayaan wax wanaagsan deeqna waa naga ballan qaaday runtii anaga nala joogo nala shaqeeyo ilaahay waxaan ugu bariyaa agaasimo guud hawsha fududeeyo anu kuma odhan waxa saarnahay laakiin xafiiska ka baran doonta ilaahay aad iyo aad baad maasantii waan ku soo dhaweynaa wassalaamu calaykum